adigaagan idaawanaya wali ma istoobtay waxaan hubaa in qaar badan oo inaga mid ay toobinka ka cabsadaan laakiin ogow toobinku waa caafimaad isla markaana kuma qasaari doontid nabiga kaleey salaatu wasalaam habeenkii Israa wal Mi'raaj waxyaabihii loo soo sheegay waxa kamid ahaa toobinka waxaana jira xadiis saxiix ah oo ibn Cabbaas ka wariyay nabiga kaleey salaatu wasalaam isaga oo dhahay nabigu wuu istoobay toobinku waa qayb kamid ah sunnadii nabiga waxana lagu daweyn karaa xanuuno badan oo ay kamid yihiin qofka caajiska dhabar xanuunka laf xanuunka murqaha oo ku xanuuna hadii aad dareemayso inaanu jirkaagu firfircoonay toobinka kadib waxaad dareemi doontaa isbedel waxaan la kulmay si ay toobinka war inooga siiso bintu oo ah mulkiilaha meeshan aan ku sugannahay oo loo yaqaano Hijama holistic therapy. Hijama is the prophetic sunnah, and Hijama wallahi is good for everything, alhamdulillah. I have seen people here who come for different things like migraines, fertility issues, back pain, so many different things. It's really undescribable the amount of things that people come for Hijama, and Hijama can heal everything. And I get many times text messages from people who were in long-term chronic pain, and they would be like, Binta, can you believe it? That pain is gone. The pain I told you about is gone, subhanallah. So Hijama, it's really miraculous. The way Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he told us to do it, it is for a good reason, subhanallah. The ones who do it, especially when they have pain, they can benefit from it a lot, alhamdulillah. So because the ummah has been recommended to do it, we recommend that every person help us revive this sunnah, because it's like a dying sunnah. The young people don't know about Hijama. Some people are scared to try it out, and I tell people do not be scared to try it out, because number one, it's sunnah. Why would we be scared to try a sunnah? A Prophet sallallahu alaihi wasallam will not tell us to do something that is scary, not bad for us, because we know it's a sunnah. We want to revive this sunnah, and we need everybody to help us revive it by trying it at least once, inshallah. So the process of Hijama, at least the way how we do it and the way I was trained to do it. So this is the Hijama cup, and this is the pump. It's very simple. So we start with a massage to get the blood flowing in the body, and once the blood has flowed, we do like moving cupping as well to help the blood flow further, and then we do cupping. So cupping is just really connecting this pump and this cup, and then the cup creates negative suction on the skin. If you see, my body has been, the cup is attached to me because it has created negative suction. And that negative suction pulls in all the negative blood and puts it in one place. So once that has accumulated in one place, the toxins are underneath this cup. So what happens after a few minutes, we release the cup, and then we clean it up. We do little scratches with a blade. Once we do the scratches, we put the cup right back where that was, because we already know where it was, and then all of that blood just literally comes out and settles inside the cup. And once it's done, it stops on its own. We do not stop it, we do not do anything about it. We stop, it stops on its own. Once it's done, we clean, and that is Hijama. bintu waxay noo sheegtay in xijaamad dadkii ay u samaysay ama toobinku ay la soo hadleen isla markaana ay u sheegeen in xanuunku iska waayay ama uu xanuunku ka tagay marka haddaad ka cabanaysid dabar xanuunada kale haddaad tahay dadka inta badan fadhiyo shaqadoodu fadhiga tahay sida inaad taraaka haysid ama inaad xafiis ka shaqaysid way ku caawinaysaa xijaama kaliya ma bixiso toobinka ama xijaamada waxa kale oo ay bixisaa package kala duwan oo ah masaajka in murqaha lagu duugo iyo jirka oo dhan waliba duugitaankaas oo ah kii dawada ahaa ama therapy-ga ahaa hadii aad markaa rabtid inaad la soo xiriido waxaan kuu soo dhigi doonaa ciwaanka lagala soo xiriiri doono shaashada telefoon numberkeeda iyo adreeskeeda aan support garayno walaasheen